لحظة حاسمة في التاريخ الأمريكي أريد لها أن توثق نظرات الأعين وقلق الوجوه. shakhsigii ay ugu raadinta badnaayeen sirdoonka reer galbeedka gaar ahaan Mossad iyo CIA-da ninkii inta badan gilgilay dalalka UK iyo Mareykanka iyo sidoo kale wadamo ka tirsan bariga dhexe waa Osama bin Laden. maxaa ka jira in Osama bin Laden geeridiisu ay sababtay mara lagu waray xarig? haddaba warbixinteenan ayaynu ku lafaguri doonaa sababtii ka dambeysay in sirdoonka Mareykanka ee CIA-du ay ogaadaan halka uu ku sugan yahay هجاميه القاعدة أسامة بن لادن. تعززت شكوك عناصر المخابرات بسبب حبال الغسيل التي كانت تحمل ملابس ترفرف في الهواء. كانت وفقا للكتاب أكثر بشكل كبير مما قد يرتديه 11 فردا من أسر الحرس الشخصي، ووفقا لتقديرات أجراها عملاء CIA وبناء على محتويات حبال الغسيل. marka hore intaynu u guda galin warbixinta waxaynu ka codsanaynaa inaad follow dhahdo boggan, sidoo kale aad share garayso warbixinta si ay saaxiibada kale u gaarto, sidoo kale subscribe dheh barta aynu YouTube-ka ku leenahay ee Rogal Media. mahadsanid. waxaan si toos ah u dul istaagi doonaa magaalada Abtubad ee gabaadka u ahayd aasaasihii ururka Al-Qaacida ee Osama bin Laden, halkaasi oo sirdoonka reer galbeedku ay ugu shakinayeen inuu ku jiro. arrinta la yaabka badani ayaa waxay ahayd haddii aysan ahaan lahayn maradii surnayd magaalo fog oo ku taala dalka Pakistan, ma dhici lahayn in la arko sawirka Nuura ee lagu soo bandhigay Sacuud, taasi oo ugu dambeyn sabab u noqotay dhicidii Osama bin Laden. buug cusub oo uu qoray wariyaha Mareykanka ah ee Peter Berger oo u shaqaynayay CNN ayaa hal mar daaha ka qaaday sida ay sirdoonka Mareykanka ugu suurta gashay in ay ogaadaan halka uu ku dhuumaaleysanayo bin Laden. Nuura ayaa waxaa adeer u ahaa Osama bin Laden, iyadoo ay xusid mudan tahay in Nuura ay hadda ku nooshahay dalka Mareykanka, iyadoo weliba taageero u ah madaxweynihii hore ee dalkaasi Donald Trump. wargeyska New York Post oo soo xiganaya bin Laden ayaa waxa uu dhawaan yiri, ma fahmin sababta ay dadku u guursanayaan hal xas. haddii aad 4 xas guursato waxaad u nooshahay sida nin aroos ah maalin kasta. Osama ayaa inta la ogyahay waxa uu guursaday tiro haween ah, isagoo markii uu geeriyoonayna u dhaxayeen 4 haween ah. markii ay dhacayeen weeraradii 11 Sebtembar, bin Laden waxa uu Afghanistan kula noolaa 3 ka mid ah xaasaskiisa oo kala ahaa Khayra Saber oo ah dhakhtarad ku takhasustay cudurrada carruurta oo ka tagtay xirfadeedii, Sihama Sharif oo ahayd gabya shahaado doctorate ah ka qaadatay naxwaha Qur'aanka Kariimka, iyadoo inta badan ka caawisay u tafsiridda muxaadarooyinka iyo qoraalada diiniga ah. halka xaaska saddexaadna ay tahay Amal Al-Sabah oo ah gabar yar oo ka timid baadiyaha Ibi ee dalka Yemen oo laga taageerayo ururka Al-Qaacida. bin Laden ayaa inantani guursaday iyada oo jirta 17 sano. Peter Berger waxa uu qoraalkiisa ku sheegay in qoyska bin Laden weeraradii 11 Sebtembar kadib ay ku kala firxadeen qaybo ka mid ah dalalka Carabta iyo Afghanistan, iyadoo kadib weeraradaasi ay ciidanka Mareykanku weerar ku qaadeen dalka Afghanistan. hogaamiye Osama bin Laden ayaa dareensanaa inuu gabaad ka dhigan karo gudaha dalka Pakistan, maadaama Pakistan aysan si xoogan ugu dhex shaqayn karin sirdoonka reer galbeedka. markaa kadib Osama ayaa go'aansaday inuu u soo guuro magaalada Abu Abad ee dalka Pakistan, isagoo ay u weheliso mid ka mid ah xaasaskiisa iyo ilaaladiisa gaarka ah sida Ibrahim Abdulhami. Osama iyo xaaskiisa ayaa halkaasi guri ka dhistay, iyadoo meel u dhow guriga ilaaladiisa iyo kiisaba ay ka samaysteen xarun ay ku kaydsadaan hubka oo cabir ahaan lagu qiyaasay 400 mitir oo iskuweer ah. haweeneydii ugu yareed xaasaska Osama ayaa halka uu hubka ku jiray waxa ay sidoo kale ka dhigatay meel khudrad yar ay ku beerato sida yaanyada iyo wixii la midka ah, iyadoo sidoo kale ku dhaqan jirtay xoogaha lo ah iyo digaag si aan looga shakin. sarkaal ka tirsan sirdoonka Pakistan ee ISI ayaa arkay Ibrahim oo ahaa ilaalada gaarka ah ee Osama oo dhex socda magaalada ay dadku ku badan yihiin, waxaana CIA-da ku wargeliyay arrintani soo korortay bishii Agoosto ee sanadkii 2010. basaasiinta CIA-da ayaa waxay arkeen gaarigii Ibrahim oo uu waday Hasran Hassan, iyagoo isla markiiba bilaabay dabagalka hawshan culus. waxaa bilowday dabagalka iyo ururinta cadeymaha. guriga waxaa ku xariisnaa gacan gashiyo dhererkiisu dhan yahay 5 mitir iyo bar. sidoo kale gurigu waxaa ku wareegsanaa siligyo. gurigu waxaa ku noolaa 3 xaas oo uu qabay bin Laden, 8 ka mid ah carruurtiisa iyo 4 carruur oo uu awoow u ahaa. waxa ay la noolaayeen hogaamiyihii ururka Al-Qaacida ee Osama bin Laden. guriga
waxa uu awooday inuu ku maareeyo dhowr xaaladood, waxaana ugu darnaa markii sawirka mid ka mid ah xaasaskiisa lagu soo gudbiyey isbitaalka iyadoo ku socotay xog been abuur ah. Intii lagu guda jiray kormeerka, wakiilada CIA-da iyo IS-du waxa ay la kulmeen xaalado la yaab leh oo la xiriira guriga iyo adeegyada ku xiran, maadaama inta badan gurigu aysan u dhammaystirnayn adeegyada aasaasiga ah, xitaa ma lahayn internetka iyo adeegga landline-ka, iyagoo sheegay in gurigu uusan u muuqan in uu leeyahay qof taajir ah. Booliska kor kala socday guriga ayaa iyana xaqiijiyey in haraadiga walxaha ay isticmaalaan ay ku shubi jireen meel ka fog dhismaha. Gurigu ayaa waxa uu lahaa dhowr daaqadood, waxa uu lahaa balkoon u gaar ah bin Laden. Haddaba maxay ahayd wixii ka dambeeyey dhimashada Osama bin Laden? Tuhunka wakiilada mukhaabaraadka waxaa sii xoojiyey xarkaha dharka ee hawada sare laga arki karay, waxaana aad u sii xoojiyey tuhunka 11 ka mid ah dharka ay xirnaayeen qoyska ilaalada gaarka ah ee Osama bin Laden. Diseembar 14 sanadkii 2010, CIA-du waxa ay madaxweynihii xilligaasi ee Mareykanka Barack Obama u soo bandhigtay caddeymo, taasi oo uu ku qancay, amarna ku bixiyey in la qorsheeyo weerar ka dhan ah bin Laden. Bishii May 1 sanadkii 2011, weeraro isugu jiray bambooyin iyo rasaas ayaa lagu qaaday goobtii uu ku sugnaa Osama, taasoo sababtay in Osama bin Laden uu geeriyoodo. Bin Laden ayay da'diisu ahayd 54 sano, isaga oo ahaa aasaasihii ururka Al-Qaacida, isagoo in muddo ah aad isu ilaalin jiray. Halkaasi ayay ku soo gabagabowday noloshii Osama bin Laden. Haddaba daawada, haddii aad la dhacdo warbixintan, waxaynu kaa codsanaynaa in aad u sheer garayso saaxiibada kale si iyaguna ay u daawadaan. Mahadsanid.